kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda loolanka ugu jira qabashada xilka madaxtinimo ee Somaliland haddii ay ku guuleystaan inay u diyaar garoobaan wada hadal lagu mideeyo Soomaaliya oo dhan waxayna sheegeen in Somaliland muddo badan ictiraaf ay raadinaysay wax badan ay qabsoomi waayeen sidaa daraadeedna iminka ay haboon tahay in Soomaaliya oo awood la dib loo mideeyo xildhibaan Axmed Macalin Fiqi iyo xildhibaan Sadiiq Warfa ayaa qaba fikirka ah haddii la wada hadlo in wax badan ay hagaagi karaan Somaliland waxa weeye 20 iyo waxaan u maleynayaa 7 sano waxay lahaayeen Soomaaliya ka go'nay isla markaasna wax hadda weyn oo soo kordhay kala go'naas ma jiraan oo aan ahayn kala qaybsanaan iyo xoogeen iyo kala dhantaalma nabad fiican iyo wax looga daysan karo dimuqraadiyad fiican oo looga daysan karo meesha ka jirta laakiin waxaan leenahay madaxda soo baxaysa inay wada hadalkii dawladda Soomaaliya dhexdeeda oo Soomaaliland ay ku jirto kala dhaxeeyay inay furaan isla markaasna in wada hadalkaasi uu keeno in dalku dib u midoobo waayo adduunka hadda midnimo ayuu qaaday wadadeedii wado kala gogo iyo waxaasi ma qaadan maanta walaalahan aan Somaliland oo Soomaaliya kamid ah oo aan rajeynayna inay wax ay tirsanayaan ay maarata laga qanciyo oo dalkan la isku soo dhaweeyo fiiri wax badan baa jira anigu dadka aad u aaminsan baanahay Soomaali weyn oo in Soomaaliya la isku haayo laakiin meel horumar Soomaaliya kamid ah waxaan leeyahay shacabkaas runtii tallaabo in maanta ay dadkii matali lahaa oo golaha shacabkooda iyo madaxda mataleed dooranayaan hal qof hal cod waxa aad u fiican weey hadallada xildhibaanadan waxay ku soo aadayaan xilli doorasho qof iyo cod ah ay ka soconayaan qaybo kamid ah geyga Somaliland Cabdi Cays Abdullaahi Maxamed Cabdi Cays Somali Cable magaalada Muqdisho